السلام عليكم. كوبيت مليون يكوبيت من عشرة وحارينتها سميين يوتيوبر كعرب كاي أبو فلا يوتيوبر كان وحاول شيطان الكويت أرسنال هانو حكسو كذا صار له بدني هاي في صوماليا يعني كم مقلين واصر ولي لما اعترافين يعني كم مقلين أوكي. حملة أجمل شتاء لو سمعنا أو جيالك dadkii masaakiinta lacag loogu ururinayay lacagtan oo ahayd 10 milyan wuxuu yiri qol Bangaliya kamana soo baxayo qolka qorrada ka samaysan ilaa inta lacag soo ururinayo maanta waxa ku taagan tahay 12 cisho wuxuu xaalay toona dhameystiray lacagta ururinteedii youtuberka carabka interview laga qaaday maalin dhaweyd ayaa wuxuu ururinayay su'aalo badan baa laga wareystay ninka Anas la yiraahdo ayaa wareystay dadka wareysta su'aal bari aad i soo jiidatay waxa lagu yiri arqaladii ugu weyneed ee inta channelkaaga wadi ku soo wajahay maxay ahayd wuxuu yiri aabahay ayaan isku qabsanay channelka waad wadaysaa youtube-ka waa sii wadanaysaa iyo ma wadisid waa markuu ku dhawaad mariyay 500 ka arintii ayaa aad iyo aad uga naxay uuna aad u saameysay laakiin aabihii kamu soo hor iman waayo uu ogyahay hadii shayga aabaha ama waalidka ku ogaan inay meel ka gaareen uu ogyahay shayga inuu shay qaldan aan ahayn laakiin maxay arintu noqotay inuu aabihii qanciyo oo ku qanciyo inaan wax qaldan aanu ahayn hooyadii laakiin loo ogolay adoo kadib markii hooyadii isagii wadeen aabi xataa ka diiday markii dambe muxuu go'aan ka aabi markii dambe muxuu aanay sameeyay wuxuu sameeyay inuu aabi ku raabo waba iska daayay wax kale aan wadaa oo arin kana waxyaabo kale computer-ku khusayay ayaan wadaa marka sidii buu ku waday marka waa been buu sheegay laakiin beentaas waxay been waxa uu heshiisay been wax isku waafajinayay marka midhaas kale waa iska ogoliyay waan isleeyahay waxaana aabiyuu ku lahaa waxaad ka shaqeysaa meel meher ka soo jeeday iskuulku degan jiray secondary-giisii oo delivery qaad alaabta dadka u qaad arintaas oo uu la qabsan waayay arintaas oo uu qaadan waayay dadkii iskuulka hayeen hortooda ku shaqeeyay dantu ceeb ma laha laakiin isagu shaqo kale ayuu haystay su'aal kale ay soo jeetay oo uu Anas interview ku weydiiyay waxa lagu yiri waligaa jacayl ku dhacay wuxuu yiri ama xiriir ma sameysay wuxuu yiri ma garanay macnaha ay jacayl iyo waxaas waligii ma sameyn mana garanay waa aan da'diisa soo imika tahay 22 oo dhawaan noqon doona 23 wuxuu yiri maxaa sababta aad u gali weyday ma maxay aad u gali weyday xiriir wuxuu ku jawaabay xiriir wuxuu baahan yahay laba shay waqti iyo qofka oo aad siisay attention iyo ihtimaam labadaana ma hayo oo shaqadeeda galiya taas waxay ku cadeynaysaa wax shay kasta oo siisay ihtimaam iyo waqti attention iyo waqti aad jeceshahayna ilaahay ka saartay inaa insha Allah ameerka fiican ka gaari doontid iyo waxa jeceshahay ka gaari doontid qofka waqtigiisa galiya qof bini'aadana ana ma uu qaldan yahay laakiin hadii aad waqtiga dibiisa badankiisa siisay qof bini'aadana qofka bini'aadanka uu bedeli kara bir hore qofka bini'aadanka waxba dhici kara laakiin shayga marnaba shayga aanad ka qawmeenin inaad waqti galisid oo qofka bini'aadanka aad waqti galisid qofkii uu ka bado xoolaha waxa waqtigaas badan u galiyay laakiin qof shayga ugu fiican ee hadda waqti galisid aanad ka qawmeenin waqtiga aad galisid waxa weeyaan naftaada hadda naftaada adigu isku invest galisid waqtigaaga aad waqtigaaga isku maal galisid waqtigaaga hadii aad ka faa'iideysatid oo waqtigaaga badankiisa waxa ay ku anfacay qabatid marnaba ka qowmeemaysid kan 5 sano ka hor wuxuu lacag u waayay lacag uu jaamacadiisa ku galo maantana wanika waxa sameynaya marka shayga aad jeceshahay ihtimaam si waqti gali jaclow ilaahay tala saaro taas waxay ahayd warbixin yar kooban oo ku saabsan Abu Falla waanay buqaan ku xiga وبالله التوفيق وعليكم محمد المنصورية وحيد الله ودمتم في أمان الله.